بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what is a fintech. horumarka tiknoolajiyada waxa ay saameysay sektor waliba ama wax waliba. haddaba qaybtan waxaan kaga hadli doonaa saameynta ay tiknoolajiyada ku yeelatay financing ama maaliyadda. fintech waxaa laga soo gaabiyey financial technology, waxaana lagu qeexi karaa isku dhafka tiknoolajiyada iyo maaliyadda si loo horumariyo adeegyada ay helayaan macaamiisha. kadib markii la soo saaray credit cardka 1950 waxa ay albaabka u furtay in bangiyada ay horumariyaan ama hindisaan adeegyo kala duwan oo ay ugu sahlaan macaamiisha inay helaan adeegyo hufan sida ATM-ka, online banking iyo wixii la halmaal. su-aasha ayaa ah, maadaama ay bangiyada weligood sameynayeen horumarkan oo kale, maxaa ka dhigay fintech wax ka duwan kuwii hore? sababta ayaa ah in horumarka fintech ay hormuud ka yihiin shirkadaha tiknoolajiyada, halka kuwii hore ay hormuud ka ahaayeen bangiyada. sababta ayay bangiyada u dareemayaan in shaqooyinkoodii ay la wareegeen shirkadaha tiknoolajiyada. haddaba fintech waxa ay awood u siisaa shakhsiyaadka iyo ganacsiyada inay helaan adeegyo maaliyadeed ay isticmaali jireen kuna helaan si fudud. waxaana adeegyada ka mid ah oo annagoo dhan aan fahmi karnaa mobile paymenting sida Premier Wallet-ka, EVC-ga iyo dahabka oo inoo suurtageliya inaan la soconno dhaqdhaqaaqa lacagteena kuna gadanno alaab lacag ka diri karno annagoo adeegsanayna mobilkeena. haddaba adeegyada waxa ay ka tirsan yihiin fintech. insha allahu sharaxaadaha kooban ee soo socda ayaan kaga hadli doonaa noocyada fintech ee hortiina ka muuqda sida cryptocurrency iyo blockchain technology, crowdfunding, robo-advisories iyo wixii la halmaala. xog dheeraada oo ku saabsan credit card iyo ATM fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.